Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteena YouTube-geena qisooyinka Shaarub ku xidhan. Caawa barnaamijkeenana qisooyinka waxaynu ku soo qaadan doonaa xiddiga weyn ee reer Hindiya lagu magacaabo Shahrukh Khan ama SRK. Xiddigan intiina ugu badan ama Soomaaliinta badan way taqaanaa. Ninkan waxaa lagu magacaabaa boqorka fanka ama boqorka filimada Hindiya SRK ama Shahrukh Khan. Ninkan wuxuu fan ku soo biiray sideetamaadkii, wuxuuna sameeyey 100 filin, wuxuuna qaatay abaalmarin ka badan 14 biladood oo heer caalami ah oo nooc kasta iskugu jirta. Intaa marka aynu ka nimaadno horta marka hore fadlan haddii aad YouTube ku cusub tahay subscribe saar, muuqaalkan like saar, siina share garee si asxaabtaada kale ula wadaagto. mahadsanid. Barnaamijkan qisooyinka dhowr xalqadood baan aktarkan ka samayn doonaa. Xalqadan koobaad ka hadlimayno cidda gabadha uu qabo, hantidiisa iyo macluumaad kale, laakiinse waxaanu ku eegaynaa qaybtan koobaad qisooyinka. xalqadan koobaad aanu ka samayn doono. Aktarkan markuu dhashay waxay taariikhdu sheegtay ama sidiisa ama isagaba laga qoray, wuxuu ku dhashay markuu soo dhacay waxaa ku duubnaa bay yidhaahdeen xuub madow ama bac madow. waxaa loo geeyey nin faaliya baa loo geeyey. waxaa lagu yidhi bal ninkan eeg. marka dalka Hindiya khuraafaadka iyo waxyaabaha noocaasa ku badan sida Soomaaliduna waa iyaguna intooda badan tabtaas waxyaabaha iskaga mid yihiin Hindida iyo Soomaalidu. waxyaabahaasaa ka mid ah. wuu eegay xalifaalku rogodana wuxuu yidhi ninkan wuxuu noqon doonaa ninka adduunka ugu nasiibka badan ama khayrkii ugu nasiibka badan. reerkii way aamineen. sidoo kale yaraantiisii nin aad u hanweyn ayuu ahaa. waxyaabo badan oo yaraantiisii sheegay bay yidhaahdeen ayaa dhab noqday. oo wuxuu yidhi tusaale sida xiddiga Amitabh Bachchan oo kale, sidiisoo kale xiddig weyn baa noqon doonaa. waxyaabahaas noocaas ayay shubaan. kadib ninkan fankii buu bilaabay si howlyari buu kusoo galay. markii hore qaybo musasala ayuu wax ka matali jiray, kadibna sidii buu kusoo galay filaan heer caalami oo kalaasiga oo rag badan diideen. filankiisii ugu saameynta badnaad uu fankan ku bilaabay islaankiisa soo fulay darbu ahaa. darna rag badan baa diiday oo Ajay Devgan, Akshay Kumar, Aamir Khan ay ka mid yihiin. maanta mawduucaas halkaas inoogu joogo. mawduuca kale inta kulmi doono nabaday.